munaasabada soo dhaweynta maamulka magaalada Yucub oo kamida goobaha dhawaan lagu biiriyay qaab dhismeedkii lagu ballaarinayo deegaanka ayaa ka qabsoontay magaalada Yucub. xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin heer deegaan xildhibaano ka socday dowladda deegaanka Soomaalida, wadamada Soomaaliya iyo Kenya, maamulka gobolka Dooloyaal dhaqameed iyo waliba sidoo kale marti sharaf kala duwan. munaasabadan ayaa halku dhig looga dhigay bulshada maamulka magaalada Yucub waxay si buuxda u taageeraysaa gurgurashaaga cadaaladda, sinaanta iyo haldoorka qarniga ee madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. mas'uuliyiinta heer deegaan ka soo qayb galay xafladan ayaa sheegay maamulka magaalada Yucub ee mudnaad isla markaana yeeshay mudnaantii ay lahayd ayna ku timid dadaalka iyo maalgashiga ay sameeyeen bulshada magaalada ayna u qalantay qaab dhismeedka cusub. waxaan halkan maanta u fadhinaa iba furka ama daahfurka maamul magaalada Yucub. runtii waa maamul macni waa nimcay noo soo korodhay weey nimcada marka inaan ku shukrino weey wixii nusqaanana inaan ka ilaalino weey. marka maamul magaaladaas waa soo dhaweynaynaa. gobolka Doolo qaab dhismeedkii ugu dambeeyay gobolada ugu badan buu ahaa. 4 maamul magaalo laga soo bilaabo Mirqaan, Galaadi, Wardheer, Yucub. 4 maamul magaalo iyo 2 degmo oo duuban iyo maaragtay shaxda buu hoodlaa. markii sidaa loo eego waxa weeye waa saami aad u weyn buu ka helay qaab dhismeedkii ugu dambeeyay. in yaroo dardaaran oo ku soo gabagabeynaya intaas waxa weeye maamul magaalo waan helay, laakiin maamul magaalada mas'uuliyad baa la socda, xil ina fuulay baa la socda. ma aha kaliya wax soo kordhay oo kaliya ma aha markii u soo kordhay magaalada ma aha. waxa weeye mas'uuliyad iyo xil baa inagu soo kordhay. mas'uuliyadka waxa number 1 ka magaaladu waa inay center ka guurto maamul magaalo u guurto weey. waa inay isxilqaanto maanta laga bilaabo. waxyaabaha isku xilqaamayso waxa kow ka cidda gacanta ku dhigaysa ee maamulaysa waa inay noqoto cid aynu u xulannay capacity iyo kartida ay u leedahay inay hogaamiso. midda taariikhda waxa weeye mas'uuliyadda ina fuuli doonto waxa weeye magaaladu waa inay canshuurtii soo saarto weey. waa inay canshuurtii looga baahnaa soo saarto weey si ay maamul magaalo u noqoto. waxaan oo dhan iyo barwaaqadan iyo nimcadan aan haysana nabadda salwa dawladda lafteedu mayna shaqayn karteen oo dadkeeda mayna u adeegi karteen haddii ayna nabadi jirin. waxa aynu ku noolnahay waa nabadda weeye. marka nabadda inaynu adkayno. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno munaasabadan qiimaha badan ee lagu soo dhaweynayo maamulka magaalada Yucub oo runtii ah meel u qalantay. waxaan leenahay hambalyo runtii maamul magaalo marka laga hadlayo waxa weeyaan in la hormariyo nolosha iyo aagaas waxa ka jiro dhan weeyaan. maamul magaalo wuxuu ka shaqeynayaa horumar badan oo isa degmadu ka shaqeynay. waxaa laga shaqeynayaa in la maamulo oo la maareeyo dhulka magaaladaas ku yaal. waxaa laga shaqeynayaa bilicda iyo nadaafadda magaaladaas. waxaa laga shaqeynayaa shaqo abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha ee magaaladaas oo bulshada ku nool magaaladaas. waxaa la hormarinayaa dhismaha, waxaa la hormarinayaa maalgelinta. idoo taas laga duulayo ayaa waxaa la ansixiyey 25 maamul magaalo halka laga ansixiyey 14 degmo oo keliya. magaalo waxay sahashaa dadkan isku yimaado aqliga, aqoonta, cilmiga iyo dhaqaalaha intii la mideeyo in horumar loo tallaabsado. waxaan idin leeyahay mar kale hambalyo reer Yucub. waxay ku tusinaysaa xukuumadda deegaanka Soomaalidu inay u taagan tahay ka jawaabidda baahida bulshada ayada oo lagu salaynayo daraasaad iyo cadaalad inta ayada lagu salaynayo. sidaa darteed waxaa marba lagama maarmaan ah bulshada maamul magaalooyinka iyo gobolku inta structure-ka dawladdu ay jirto waa la ansixin doonaa. degmooyin badanna waa la ansixin doonaa. maamul magaalo badanna waa la ansixin doonaa. deegaankeennu intuu jirana marba tallaabada la qaado sidii tallaabooyinka loo qaaday baa loo qaadi doonaa ayada oo daraasaadka hadda kuwa lagu saleeyay laga duulayo cadaaladda iyo sida wax loo qaybinayo iyo resource-ga sida loo helayaay inuu isku mid noqdo intaba dadku ay u sinaadaan ayaa hadduu ilaahay la samayn doonaa. bulshooyinka Yucub 2 kelmadood baan oranayaa. Yucub waa magaalo weyn, waa caasimad, waa inaad noqotaan gobashii Soomaaliyeed. qof kasta oo Soomaali ah waa inuu ku soo hirin karo. qof kasta oo muwaadin ah
وإنه كوسو حساب تبي كرا إسلام كان الدقي كرو كله لان كرا كجرعسن كرو كل شيء يسن كرو هذانا هرمر إنك أنا بلابينه وحاول دولة كينيا كم في لندن تيجي وحال رأى مركز جرعسن جرعان نوقت كينيا نيروبي جرعان يوتشر إنه يكون حساب تمام ويمال جنيان سياسيين تحلبان هذا كسر جدا بيشن أما دقمة أما ماول مقالدن إن واحد الله أو يتري كران يكون عاون كران يكون قريب يستوي كران هذا هو مرة نقطة هذا نقالة نقطة هذا هالعور نقطة هذا مسكح نقطة هذا فكر نقطة أنت من اللي قريب يستكتان سي ما أنت هالك أنت جنّا أنا قصدي تلعب سنو ماول كم مقالة يعب لقعدي يجوا ريجي أو سيلة بلارن أو مشروع هانا أو سيلة بس ما هنا حولها ماشي أرسل لها ين حولها ماشي لو قدر لها حولها ماشي لقى ورابين لها السيلة حولها لو قدر لها أو بلارن أو كوب حيس العك بدن تدوات المليون أما 6 مليون بالقياسها إلا ده حاجة دولة والدين أنت كوكب نادونتو هرمرك إذا حريه وحرجينيا إنه استمس عندونه xildhibaan maxamed caddow oo ka tirsan xildhibaanada Kenya iyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya oo ka hadlay munaasabadan ayaa mahadnaq u jeediyay xukuumadda deegaanka iyo xisbiga barwaaqo qaab dhismeedka cusub ee lagu soo kordhiyay deegaanka Soomaalida inaan idin kala qayb galno xafladda iyo farxadda iyo horumarka aad ku tallaabsateen waxaan rabaa laba kelmadood inaan midna reeyo cub iraahdo midna dowlad deegaanka iraahdo reeyo cubow safarku waa dheer yahay qaadeen hadda ilaahay baa ku mahadsan mahad oo dhan ilaahay baa iska leh tallaabada la qaaday waxaa la rabaa safarku dheeraa in lagu sii socdo in ismaamul magaalo ama council waxa la yidhaahdo la helo waa wax weyn wax sahlan ma aha ciyaar idinku gelin marka inaad council haysataan macnaheedu waxa weeye safarkii baa idin bilowday safarkaas ee lagu gaari karaa waxa ugu horeeya nabadgelyada hambalyo maanta maamulka magaalada ee u dabaaldegayno waa mid aad in badan u soo samirteen waanaad mudan tihiin hambalyaadan idin leeyahay sidoo kale waxaan hambalyaynayaa dhammaan deegaanka Soomaalida waddanka Ethiopia intii loo magacaabay gobol iyo intii loo magacaabay degmo iyo intii maamul magaalo loo magacaabay dhammaantood waan hambalyaynayaa iyaguna micnaha ka dambeeyo in magacaabitan la sameeyo magacaabid keliya ma ahee mihnad weyn baa ka dambayso waxayna u dhigan tahay in maamulka suuban ee dawladeed la dhaadhiciyo la daadajiyo oo la gaarsiiyo shacabku hadba meesha uu joogo taasay ka dhigan tahay in shacabka loo dhaweeyo adeega dawladda marka waa arrin dawladnimada aad ugu weyn oo ah in qof walba meesha uu joogo uu ku dareemo adeega iyo joogitaanka dawladeed labada fariin ee idinkaga tegaya reer Yurub iyo dhammaan deegaanka Soomaalida waddanka Ethiopia waxa weeyaan marka ugu horeysa midnimo ummad midaysan baa meel gaadha midnimo inaad ku dadaashaan iswalaalaysataan ku dadaashaan mid walba inuu qofka kala taageero dawladda la garab istaago oo taageero buuxda loo muujiyo tan xigtana waxbarashada iyo cilmiga in lagu dadaalo geestooda waxaa iyaguna munaasabadani ka hadla odayaal dhaqameedkii kala duwanaa ka soo qaybgalay munaasabadani waxaan u mahadcelinaynaa dawlad deegaanka sababta u noqday inaan isu nimaadno ee madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar uu madaxweynaha u yahay ee xustay maanta Yurub waxay mudnayd yaan marka koobaad u mahadcelinaynaa marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa dawladaha dariska dadka ka yimid deegaanka waxa u dhasheene ee qaarkood weligood arag ee inta badan inaga maqnaa ee kalgacayl maanta la yimid waan u mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda qiimaha iyo qaayaha badan oo si gaara aan u dareemayo gobolkii halganka magaaladii halganka Yurub inay maanta hesho council maamul magaalo
inaan ka soo qayb galo aad baan ugu faraxsanahay waana bogaadinayaa waana idin hambalyaynayaa meeshan hadal badan ma yaallo hambaliyaa taalla intaa kadib yucubow meel waqti fiican baad ku soo aadeen oo nasiibkiinu ilaahay keenay dhulka dhaxareed baa taalla madaxdii deegaanka iyo tii darisyaduna way isu yimaadeen marka waxaa u timaadeen meeshii qurux badan oo dawladu ka dhisantao maamulo laga bixinayo kawsalo marka soo dhowaada annaga yucubow magaalada hala dhiso kama abaaldhacayno waan garab taagannahay dowladda deegaanka soomaaliduna ha waarto ha jirto cadowgeeda ha jabo taasuna waa taata kale ismaamulka kawsalka yucub boqolkiiba boqol aad iyo aad baad mahadsantihiin marka kale waxaa weeye kawsalkan soo kordhay yucub waa idin garab taagannahay walaalihiin baan nahay waa idin garab taagannahay